6 Oktoobar sanadku markuu ah 1973 saacadda 8 duhurnimo markay ahayd waxaa dhaqaaqay ciidamadii militariga ee Masar ee uu hogaaminayay Anwar Saadaat si ay u soo celiyaan Siinaa oo gacantooda ka maqnayd 6 sano ka hor 76 markii la marayay ama 3 sano kadib waa xilligii argoosiga ay dowladaha Carabtu ka argoosan lahaayeen waxaa bilowday dagaalkii Qufraan ama dagaalkii Oktoobar wuxuuna socon doonaa dagaalkan 19 bari arintani waxay dhabar jab ku noqon doontaa Israa'iil magaalooyinka inay qarsoomaan baa dhici gaadhayba Masar haddaan u laabano dagaalkani waa mid bogogga taariikhdooda qaybta hore uga jira waayo waa markii ugu horeysay oo ay dowlad Carab ahi halgan la gasho ciidamada Israa'iil iyadoo ay sidaa tahay haddana waa la joojin karay dagaalka waa maxay sababtu Anwar Saadaat duulaan ugu qaaday Siinaa iyo waa maxay sababta uu Golda Meir u diiday wadahadallada ay Masar u soo jeedisay haddaba si aan u ogaano meesha ay salaadu ka xirmi laadahay waxaa nagu waajiba inaan taariikhda dib ugu laabano si aan mas'aladan u furfurno waxaan joognaa magaalada Qaahira Oktoobar 7 waxaa baarlamaanka soo gaaray gaari qafilan gaarigaas qofkii ka soo dagayna wuxuu noqday Anwar Saadaat oo da'diisu ahayd 51 sano jir si uu xukunka ugala wareego Jamaal Cabdinaasir kaasoo u dhintay xanuun wadnaha kaga soo booday wadooyinka caasimadda ee Qaahira kumanaan kun oo rag iyo dumar iyo carruur isugu jira ayaa u baroor diiqayay hogaamiyihii hore ee dhintay kaasoo Masar xukumayay 18 sano ayagoo rajaynaya in dhidibada loo taago dowlad Carabeed oo midaysan waxa uu ahaa Anwar Saadaat garabka Jamaal Cabdinaasir balse hooska Jamaal Cabdinaasir buu ku hoos jiray waxa uu ahaa mid amar walba fuliya dagaalkii Britishka lala galay afartameeyadii afgambigii dhacay 52 markuu sanadku marayay iyo xoreynta kanaalka Suez tan ugu muhiimsan oo ah howlgalladii uu fuliyay sanadku markuu ah 67 isla sanadkaas Janaayo 5 Israa'iil waxay soo qaaday weerar kadib markuu Jamaal Cabdinaasir uu handaday laga joogo ilaa ay Israa'iil qabsatay dhulka Siinaa Gaza iyo kuwa kale waa guuldaro foolxun oo caalamka Carabta soo waajahday taasoo ay heshiis suurtagal ahayn Israa'iil ra'iisul wasaarihii markaas Golda Meir oo haween ahayd markaa wuxuu isweydiinayay waa kuma Saadaatkaas xilka uu kaga dambeeyay Jamaal Cabdinaasir muxuu doonayaa ma wuxuu qorsheynayaa inuu Siinaa dib u soo celiyo isagoo awood isticmaalaya uma ictiraafin karno inuu yahay shakhsi ahmiyad leh xilligaas waxay isku waafaqday wakaaladda isgaarsiinta hal mid oo ah Saadaat waa daciif afkaar badan ma hayo waxaa fudud in lagu bedelo qof isaga ka adag ma soo waajin Golda Meir wax xiriiri ah waayo waxa isku qancisay inuusan awoodda Jamaal Cabdinaasir oo kale uusan lahayn shacbiyadeedii baa ballaaratay markay dhulka Siinaa iyo dhulal badan isku darsatay waa 74 jir waxa ay xukuntaa Israa'iil oo aan weligeed gaadhin dhulka ay maanta gaadhay sida Anwar Saadaat oo kale waxay ku bixisay cimrigeedii oo dhan dhisidda dalkeeda waqtigeedii dhalinyaranimo Mareykanka ayay ku soo qaadatay
si ay ugu wareegto Israa'iil gumaysiga Ingiriiskana la diridho. 48 waxay kaaliye u noqotay David Ben-Gurion aasaasihii Israa'iil, ilaa hadda waxay ku ictibaariyaan hooyadii Israa'iil. kadib 2 isbuuc dhimashadii Jamaal Cabdinaasir, wuxuu Anwar Saadaat ku magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda ee Masar, isagoo og waxa tartan sugaya. dhammaadkii dagaalkii 67 arrimaha daakhiliga ah ee Masar waxaa ku jiray qalalaashu ku jiray, waayo dadka maankoodii baana ka bixin qabsashadii laga qabsaday dhulkii Siinaa. magaalada New York waxaa warbixinta Anwar Saadaat bixiyay soo gaadhay oo ku abuuray walwal. Well, I shall do my best to follow the policy of the late president, my dearest friend, President Gamal. But no one will capitulate here in this country. I am not ready to capitulate or to surrender 1 inch or a bit of sand from our land. magaalada New York waxaa warbixin ka Anwar Saadaat ay soo gaadhay oo ku abuuray walwal, waayo Saadaat diyaar buu u yahay inuu hub u isticmaalo dib u soo celinta Siinaa, halkaas oo uu khasaare baaxad leh ka dhasho. waxa uu ninkaas lagu magacaabayay Gonnar Yaring. ninka walwalkaas uu hayo waa safiirka Mareykanka u fadhiya Bariga Dhexe, isagoo muddo badan xal u raadinayay dagaalka labadaasi dal. markii dambe wuxuu xal u arkay inuu miiska wada hadallada ku dhameeyo arrintaas. sanadku markuu ahaa 71 8 Febraayo wuxuu 2 fariin u kala diray labada dal ee ishaya. wuxuu iqtiraaxiyay Yaring inay I feel sure that the parties will enter the discussions with a firm intention of finding a solution. I hope that with goodwill and understanding, they will in time reach agreement on a just and lasting peace. Israa'iil ka baxdo Siinaa, muqaabilkeedana Masar laga rabo inay damaanad qaado in si xorriyad leh lagu kala goosho marinka Suez iyo in aan dagaal dambe la gelin mustaqbalka. Qaahira Saadaat waa u aqbalay heshiiskii, waayo in Siinaa dib loo soo cesho waa arrin aan fududayn. ciidankiisuna ma awoodo, markaas xalaan u banaanay inuu wada hadlo ma jiro. tani waxay ahayd falsafada mowqifka Masar. Saadaat waa u warceliyay Yaring, waxa ay warcelintiisu ahayd mid iijaabiya ama la qaadan karo. wuxuu noqday mid tallaabo horey u qaaday oo ah markii ugu horeysay uu hogaamiye carab ah oo heshiis la galo Israa'iil, iyadoo heshiiskaas uu yahay in labada dal ay nabad ka dhex dhacdo. balse Golda Meir way u qaadan weyday, waayo marna ma suuraysan in madaxweyne Masar uu heshiis la geli doono. hadda waa dowrkeedii si ay jawaab mugle ugu celiso Yaring. waxay gurigeeda ugu yeedhay wasiiradii aad ugu dhowaa. wasiiradaasi waxaa ka mid ah Israa'iil Jaliili, la taliyaheeda aadka u kalsoon tahay Mushi Dayaar, wasiirka gaashaandhigga iyo kuwo kaloo badan. kulankani aan rasmiga ahayn waxa uu Golda Meir ku gaadhay mustaqbalka Israa'iil, arrinkaas oo ah mid sir oo laga wada hadlayay. kulankan aan rasmiga ahayn
waxa ay goldambayr iyo wasiiradeeda ku gaarayaan mustaqbalka Israa'iil. waa inaan xuduudkeena aanan dib uga laaban, Masar hawa yeeshee ama hawa keentay heshiis. Anigu ra'yigaas baan ku raacsanahay. awoodda ciidankeena ayaa naga dhigaysa meesha aan rabno ay Israa'iil xuduud u noqoto. Golda arrinkani waxa uu iskaga dhaafinayay heshiis, mana doonayn in la yiraahdo waxay diidaysaa heshiis nabadeed si ay dhulka xoog ugu haysato. saacado dooda kadib waxaa la gaaray go'aan la isku raacsan yahay labada dhinac. go'aankaas oo ah in mas'aladda in carab dhulka loo soo celiyo waa mid waqtigeedii aan la gaarin. waxaa cad in dalabku yarin la diiday. waxay Israa'iil u arkaysay in Siinaa ay tahay dhul lagu degdegayo in go'aan laga qaato, dhul amni ah, dhul ay amni yeeleen oo ay wareerka Masar la isaga dheeraynayo. taasi waa qaabka ay mustaqbalka u arkayeen. waa wax aan dhacayn in Masar ku wareejino dhul aan 67dii qabsanay, si xuduud kale waan ku wada hadli karnaa. Siinaa sha'nigeedana waa inay Israa'iil. تم رفض اقتراح يارينغ. كانوا ينظرون إلى سيناء على أنها منطقة عازلة، منطقة آمنة لتجنب التوتر مع مصر، لا شيء آخر. تلك كانت رؤيتهم للمستقبل. لا يجب التوصل إلى اتفاق مع مصر في شأن حدود ما قبل عام 67، بل حدود أخرى من شأنها أن تضمن أمن إسرائيل. Prime Minister, you want Sharm el-Sheikh and you want an access road to it, right? One territorial access, yes. You want the Golan Heights. You want East Jerusalem. You want military positions on the West Bank of the Jordan at its narrowest portions. You want Gaza Strip. And you want a demilitarized Sinai. Now, is there any reason to believe that if you maintain that position, that eventually you will not again go to war with the Arabs? There will be no comparison, less possibility of war. qaahira haddaan milicsano waxaa waddada u soo baxay kumanaan arday ah. ardaydaasoo ka soo horjeeda saadaad, iyagoo cuskanaya in siyaasaddii uu isticmaalay ay ku dhammaatay si fashil ah, oo ah in Israa'iil ay diiday in dib ay uga gorato dhulka Siinaa. ma yahay saadaad hogaamiye go'aamada khatarta ah, ku dhiirada carada shacabkiisa iyo diidmada Israa'iil. wuxuu ka yabeehayay Anwar Saadaad inuu qorshihiisa bedelay. markaas waxaa biyo kama dhibcaan noqday in awood la isticmaalo si dib loogu soo celiyo dhulka Siinaa. wuxuu dareemay in awood ku filan uu haysto si uu u fuliyo howlgal xadidan si uu ugu diyaar garoobo dagaal weyn. fikraddu ma ahayn inaan dhaafno xuduudka Israa'iil, balse fikraddu waxay ahayd inaan ka tallaabno xuduudka Israa'iil. fadhiisinta aan ku sugnayna aan joogno qoraysano, annagoo ciidankeena aan u bareerinayn khatarta ka timaada Israa'iil. wuxuu kaluu doonay in dhulka la kala qaybsado oo heshiis lagu dhammeeyo marka hore, balse taasi waa socon weyday. 16 May sanadku markuu 71 wuxuu Saadaad magacaabay Saacad Shaatabi waa in khidad lagu weeraro u sameeya ciidamada Masar. waa nin xariif ku ah howlahan. wuxuu ka qayb galay dagaaladii Israa'iil lala galay
oo dhan laga soo bilaabo sanadkii 48 xilligan waa qorsheeyo dagaalka saadaad waxa uu ka aqbalay ninkan talooyin uu soo jeediyay waa inaysan ciidamada aysan quusin masaafo fog difaacana waa inay galaan diyaaradaha wax rusheeya yaan dhabarka looga soo jabin iyo si aan guuldaro degdeg ah Masar u soo waajin sababta qaybtii koowaad wata qaybta labaad insha Allah waa ku xigi doonta nabadgelyo